kusoo dhawaada qayb kaloo ka mida sheekooyinkeenii taxanaha waa sheeko xariira kale waxaa yidhi beriba iyo carruuray waxaa jiray digaagad meel kula noolayd koox kale oo xayawaana waxayna ku wada noolaayeen xero weyn oo ay wada deganaayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa carruuray digaagadii waxay u soo baxday bannaanka si ay u doonato cunno waxayse ka fikirtay in saaxiibadeeda kale ee la nooli ay la raadiyaan cunnada bannaanka ayayna uga soo baxday halkii ay ku xaraysnayd markii ay cabaar soo socotay ayaa waxay markiiba doontay bal inay weydiiso sac oo ka mid a xayawaanka meesha kula xaraysnaa inuu cunno la doono si ay wax u wada cunaan sici wuxuu yidhi maya anigu waa maanta bacad oo ma bixi karo wuu isaga tegtay oo waxay u tegtay doofaar oo meelaan ka fogeyn ku xaraysan waxay weydiisay oo ku tidhi bal soo bax aanu wada raadsano cunno aynu wada cunnee sidiise la mid ah ayuu doofaar waxa uu uga jawaabay maanta waa kulayl iyo qorrax daran oo ma bixi karo way ka tagtay oo waxay u timi meel hurda waxay ku tiri kaalay aynu qaraab tagnee aynu cunnad wada doonanee isna waxa uga jawaabay waa kulayl oo meelna u bixi maayo waxay ugu dambayntiina u timi xuur biyaha baddeeda jiifta waxayna ku tidhi kaale cunno isla doonane oo qaraab tagnee xuurtana waxay ku tiri waa kulayl oo biyahayga dhanna uga bixi maayo waxaana digaagadii go-aan ku gaadhay inay kelideed iyadu cunno raadsato cabaar markii ay carooray socotay ayaa waxay heshay midho meel yaalla midhihii ayay ururisay markiina waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay in midhahan la beeri karo oo ay mustaqbalka u noqon karaan beer weyn oo ay cunno badan ka wada samaysan karaan waxayna saaxiibadeed ka dalbatay in midhaha lala beero si ay beer uga samaystaan midhana uga goostaan mustaqbalka waxayna weydiisay sac oo ay ku tidhi ma ila beeraysaa waxau yidhi maya waad ogto waa kulayl anigu waxna kula qaban maayo doofaar ayay haddana ula timi isna waxau yidhi maanta waa kulayl iyo qorrax daran oo meella u bixi maaya anigu markaas ayay ka tagtay oo eygii uu haddana mar kale hooda weydiisay bal inuu midhaha la beerayo isna waxa uu ku yidhi may haba sheegin waa bacad anigu meella u bixi maayo maanta midhana kula beeri maayo xoor ayay u tagtay oo weydiisay intee leeg xoorina waxay ku tidhi waa kulayl oo anigu waxba kula beeri maayo ee iska tag